Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, magaca RRA ayaa ahaa mid si weyn looga adeegsaday deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan taageerayaasha iyo xisbiga madaxweynaha xilka Koonfur Galbeed haya ee Cabdicasiis Xasan Laftagareen. Ciidamo aad u tiro badan oo muddo dhowr maalmood ka hor uu tababar u soo xiray madaxweyne Laftagareen ayaa waxa uu ku sheegay inay yihiin New RRA ama RRA-da cusub. laga bilaabo Ex-Control ilaa iyo Jaziiro ilaa iyo meesha la yiraaho xaramka xuduudka Koonfur Galbeed ay leedahay waa la yaqaanaa. laga bilaabo Ex-Control ilaa iyo Jaziiro ilaa iyo meesha la yiraaho xaramka inta u dhaxayso ilaa xuduudka Ceelberde ilaa xuduudka Gado inta u dhaxayso ilaa xuduudka Jubbada Dhexe Bu'aali Saakow inta u dhaxayso mas'uuliyad ka saaran tahay saddexdaas gobol yaa waxaa la rabaa amnigooda iyo mas'uuliyadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda iyo calankoodaba inaad difaacdaan. Maxaa laga soo gaabiyey magacan RRA maxaana qasbay xilligan in magacan si aad ah loo adeegsado oona keenay in xilligan soo shaac baxo maadaama ay ka dhaxayso xiisad dagaal maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ah. Magaca RRA waxaa laga soo gaabiyey Raxanweyn Resistance Army, waxa ay ahayd jabhad laga dhisay deegaanada Koonfur Galbeed bartamaha sagaashamaadkii. jabhadanina waxa ay soo shaac baxday ama si caadi ah loogu dhawaaqay ama loo bartay sanadii 1995. waxaana hogaamin jiray jabhadan Xasan Maxamed Nuur oo ku magaca dheeraa Shaati Gaduud, kaas oo dhintay sanadii 2013. taariikhaha jabhadan waxaa ka mid ah inay dagaal la galeen Generaal Maxamed Faarax Caydiid, kaas oo xilligaas ku doodayay inuu yahay madaxweynaha dowladii Salbalaad, waxaana dowladdaas mucaarad ku noqday dadka reer Koonfur Galbeed iyo jabhadii RRA. isku xirnaanshaha RRA iyo adeegsiga magacan xilligan uu adeegsaday Laftagareen ee RRA waa mid salka ku haysa in Cabdicasiis Laftagareen uu ka tirsanaa dhalinyaradii RRA sagaashamaadkii soo bilowday ama jabhadii xilligaas, waxaana marar badan uu Laftagareen ku faanay inuu ka mid yahay jabhadii RRA ama uu qayb ka soo ahaan jiray xilligii hore, waxaana sababay soo laba kaclaynta RRA iyo magacan jabhadan in dib loo dhiso iyo in ciidan dib loo sameeyo. duulaankii ay ku qaaday dowladda federaalka ah deegaanka Koonfur Galbeed ama deegaanada Koonfur Galbeed ee dowladdu ku sheegaysa in dib loogu soo celinayo gacanta dowladda, xilkii iyo waqtigiina uu ka dhamaaday Laftagareen.